سعيدو قوش ما أنت ذاك يا سعيد ماشي قوش ذاك يا كابتنك ماشي كابتنك ماشي كابتن مويه كابتنك هذا كابتن هذا عيار صفي عم عيارتي يقور عيارتي يقور عيار بعدين هرتي عيار بعدين هرتي يقور عمر والله سيال بدلي ما شاء الله عمر this beautiful was very beautiful game. Thanks, brother. How do you see, brother? And how is the next game you'll be playing? Inshallah we'll win next game. Yeah? Inshallah. Well, scoopta sama uskol soonta adi ciyalka kooxdada. I mean, you have confidence with your Somali that you're going to win next team? Inshallah. MashaAllah. Thank you, Umar. MashaAllah. I want to know qofkani waxa weeye Abdulqaadir Xasan Ducaale oo ciyaarta soo abaabulay Somali community meeshan maxaa muhiim ah in anaga aan ka muuqano kaliya ayaa muhiim ah ma sha Allah waa ciyaarnay waana ka baxsanay maanta marka waxaan doonayaa waxaan la ciyaarnay 16 kooxood oo Afrikaanka oo dhan Afrika ka yimid qaaradda Afrika ka yimid marka hadda maanta waxaan gareystay inaan xoogaa maadaama asiga soo abaabulay inaan wareysto coach waxaad iga warantaa ciyaarta maanta sidee u dhacday tii hore sida la kaga badiyay tan hadda saad u badiseen horta ma santahay waxa meesha ku ciyaaraya waa Somali United ayaa ciyaaraysa ma sha Allah waan loo baahan yahay mataqaanaa maadaama aad tahay qaaradda Afrika aad ku abtirsanayso waa loo baahan yahay inay mataqaanaa koobka Afrikaanka aad ka qayb gasho haddana ciyaarahan waa la iska badiyaa marna waa lagu guuleystaa marna waa lagu dareystaa hadda maadaama aan shalayna laga badiyay oo lagu badiyay 4-0 maanta waxaan ka badinay Suudaan 3-0 iyo Tanzania hadda ciyaarta aad arkayso ku dhamaatay 5-0 ma sha Allah labadaas game baan badinay haddana waxaan la ciyaari doonaa kooxda la yiraahdo wadanka la yiraahdo Congo saacado ka bacdi aan la ciyaari doonaa semi final so waxa weeye dadka halka ku ciyaaraya waa Somali United Soomaalida degan South Australia ayaa ciyaaraysa waan isku raacsanahay waan ku wada dhannahay wax dhibaato ah hadda soo wajahdayna ma jiraan marka sidaas isku maasantahay amigaaga ilaa inta uu leeyahay koobka ma laga yaabo inaad qaado waa ciyaarta oo jeeda qolad adag baan arkay Liberianka oo kale South Africa oo kale waa kuwii ilaa koobka last year ay qaaday weeye waxa way anigu weynaba give up waan ugu soo talagalnay inaan aan koobkaas u qaadano waayo surwaalka waxaan u soo gashanay shaatiga inaan anigu koobka qaadno at least in a final gaarto at least hadaan waxba kala qaban karin in mataqaanaa aan muujino inaan wali wadanka nool yahay dadkii ay wadankii u soo wadi aad u wada burburina wali wax ka nool yihiin ay Soomaali wali shaqeynayso ay ciyaarayso marka waxaan rajaynaynaa in kastoo ciyaartooy badan laga maqan tahay Soomaaliya ay maqan yihiin interested ku maqan yihiin qaarkoodna ay xanuun wax ku maqan yihiin ciyaartooyina ay dhameen laakiin waxaan la nimid halka ciyaartooyina inta ugu fiicneed waan haysanaa in kastoo ay qaar laga maqan yihiin waxa meesha ku ciyaareen waa kooxda Somali United laba game waan badinay game waan laga badiyay haddana waxaan u gudbinaa semi final ma sha Allah waxaan ku rajaynaynaa coach garabkaaga Allah kala wax ku garab taaganaa anagana in Soomaalida horumar ay gaarto Soomaalida ku dhaqan meeshan koonfurta South Australia marka waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan koobka inaan qaadna ku rajaynaa insha Allah Abdulqaadir Xasan Ducaale waad maadsantahay waxaan xogaa yar jeclaysan lahaa Xasan Cabdi oo ka soo noogu yimid halkaani maalbo noogu yimid oo odayaasha Soomaalida kamid ah asagana ciyaarta sidoo arkay Soomaalida sida u badisay iyo sidii raaxinta leh Xasan Cabdi waxaan jeclaan lahaa xogaa waxaad arkaysi bal iga waran kooxda Soomaalida heerkooda iyo hamigooda intuu leeyahay koobka ma laga yaabaa inay qaadaan aad iyo aad bay u fiican yihiin himiladoodu aad bay u wanaagsan tahay ciyaartooy wanaagsan baana ka buuxa Soomaalida halka laga sii wado ma sha Allah wama satahadeer qaran la ku sii adigana waxaan doonayaa hadan xogaa odayaashii magaalada ku dhaqnaa Maxamed Xasan Maxamed Cusmaan Fagaagan adeer xogaa bal adigana waan ku arkay dhalinyarada dhiirgelinaysay waqti ku qaadatay insha Allah garabka Allah kala adigana xogaa bal horta marka ugu horeysa aad baan waxaan ugu faraxsanahay garoonka ay yimaadeen Afrikaanka faraha badan oo ay isugu yimaadeen 16 dal ay isugu yimaadeen inaynu ka dhex muuqano aad baan ugu faraxsanahay marka labaad ciyaarta aynu ciyaar aad u heersareysay ahayd shalayna mistake yar baa dhacay oo ninkii kabtanka ahaa baa la siiyay red sidaas shalayna laga reeyay labada ciyaarood oo dambana indhahaaga ku arkisay u jeeday ciyaaraad wanaagsan baa la muujiyay haddana waxaan ku rajaynaynaa kaalin fiican inaan ka galno insha Allah haddana laga badiyana waan ku qanacsanahay maxaa yeelay
واجبكنا وان قدني سلهانا وقم مقني صحوي دلهانا وقم مقني صحوي عيارتوي aadun iyad wanaagsan oo ciyaar fiican oo ciyaaray runtii ma sha Allah oo buuxiyay kaalinta kuwa maqan ma sha Allah oo Soomaalida صحوي raga hadda ka maqan oo Soomaalida aan harjeynay inay ku soo biiraan walaalahooda kale Soomaaliya way adiga waa ku arkay shil gool baad dhalisay biyo ina biyo si ay qoomiyadooda u muuqdaan raacdo jiritaanka Soomaaliyeed haye sida ayaanu arkaa way adeer waa maasanta insha Allah maanta waxaan rajaynaynaa insha Allah koobka inaan ku guuleysano anaga aan qaadno rajadeena maxmo maadaama hal mar laga badiyay aan laba jeer aan badinay rajadeena maxmo raba socdo mar la isku raadin finalka hadaynu u soo gudubnay taasaaba waxay tahay rajada aad nagu muhiimsan ha insha Allah daawadayaal waa shabakadeena ka daawan doontaan ciyaarta hadda raba wajida raba meesha ka socdo rajadeena maxmo maanta taariikhda 30 bishii 9 2012 waa daawasho waxaan insha Allah